السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسو دواذا متكي مدى عشرة كساب السنة برشد اللغة إنجليزية. مقعي ومحمد محمد. طبعا وحان مركب وهورين كجام هذا علينا إياه إن كبدن لحظة كن قف ما ركتي سبسكرايب لهذي هيميلو أكاديمي. طبعا وحان رجينينا إن ما ركتي ضد بدن كلا آدو ترى بدن إنه وصو بيران. waxaan sii xoojin doonaa ama 6 waxay inoo tahay dhiirigelin ay inoo tahay waxaan sidoo kale maartay aan sii xoojin doonaa casharada aan soo gelino gaar ahaan casharada ku saleysan barashada luqadda Ingiriisiga sidoo kale koorsooyin kale ayaan soo wadnaa marka waxaan jecelnahay inaad maartay aad share gareysaan ama asxaabtiina aad la wadaagtaan casharada ama muuqaalada aan soo gelino ee maartay kanalkan maartay aad ka daawataan haddaba maanta waxaan casharkan uu ku saabsan yahay vocabularies ama erayo marka erayo muhiim ah gaar ahaan ku saabsan qoyska ayaynu ku soo qaadanaynaa marka waxa dhahanay dhankan maaragtay bidixda waa Soomaali dhanka bidigtana waa maaragtay waa Ingiriisi marka waxaan ku bilaabaynaa ereyga ah a mother in law ayaan ku bilaabaynaa marka ereyga waxa la yiraahdaa marka a mother in law marka waa sodohda ama gabadha aad qabto hooyadeeda ayaa la yiraahdaa marka a mother in law an aunt ereyga an aunt waxa la yiraahdaa marka ereygan waa eedo marka ereygan an aunt waxa la yiraahdaa waa eedo ereyga single waxa la yiraahdaa qofka aan guursanin doobka ah ama aan wali aan guursan ayaa la yiraahdaa marka ereyga an uncle waxa dhahanay ama uncle waxa loo jeedaa adeer ama ruuxa la dhashay aabahaada ayaa la yiraahdaa marka a relative waxa la yiraahdaa qaraabo ama dadka aad dhalateen ayaa relative la yiraahdaa marka ama qof kimid ah yani qaraabada ayaa la dhihi karaa oo kale relative marka a married couple waxa la yiraahdaa marka dad lamaanayaal isguursaday ama wiil iyo gabar isguursaday ayaa la yiraahdaa marka qoys ay dhistaan oo isguursadaan ayaa la yiraahdaa marka a married couple ama dad isguursaday ama qoys iyo leelay ayaa la yiraahdaa marka cousin waxa la yiraahdaa marka waa dadka ilmo adeerada ah ama dadka dhashay ayaa la yiraahdaa ereygan waxa weeye marka ereygan waa dabcan family kama tirsan waa laakiin erey maartay respect ayaan dhahnay waa erey xishmad ah ama waxa loo jeedaa ixtiraam ama qofka dadka inaad ixtiraam siiso ayaa la yiraahdaa marka respect ereygan waa a friend marka waa saaxiib marka waa qofka aad saaxiib aad tihiin ayaa la yiraahdaa marka casharkii dabcan ku saleysanaa maartay ereyada halkaas ay marka uu maartay ku igyahay dabcan cashar aad u gaaban ayuu ahaa laakiin ereyo muhiim ah ayaa ku jiray ereyga koowaad waxa dhahnay a mother in law waxa dhahnay waa sodohdaada ama gabadha aad qabto hooyadeeda ereyga xiga waa an aunt eedo ereyga xiga waa single waa doob ama wali aan guursanin ereyga xiga waa an uncle ama adeer ereyga xiga waa relative qaraabo ereyga xiga waa a married couple dad isguursaday ama qoys dad dhistay cousin waxa la yiraahdaa marka waa maartay ayagana waa ilmo adeero ama dadka aad isxigtaan ereyga xiga respect waa xishmad ama maartay ixtiraam marka ereyga xigana waa ama ereyga ugu dambeeya casharkana waxa weeye a friend saaxiib ayaa loo jeedaa marka dabcan casharkii halkaas ayaan maaragtay ku soo gabagabeynay ama uu ku igyahay waa muuqaal aad u gaaban ayuu ahaa hayeeshee waxaan rajeynayaa ereydaas in dad badan ay ka faa'iideystaan dabcan subscribe taabo ama calaamada subscribe ka taabo hadaadan maartay hore aadan u rukumanin ama aadan subscribe dhihin Himalaya Academy sidoo kale la wadaag asxaabtaada sidoo kale waxaan u baahanahay taladaada ama tusaalooyin ama wixii fikrad ah ama aad ka qabto inaan ka bedelno muuqaalada aan soo gelino
dabcan qaybta commentiga ee hoose muuqaalkii noogu soo gudbi dabcan waan kaaga soo jawaabi doonaa su'aashii aad qabto ama wixii talo iyo tusaale ah intaan muuqaal kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo